nabad daawadayaal idilhaantiin meel walbaad naga daawanaysaan kulan weyn ayaa maantayna kulmiyey guud ahaan iyadoo kubadda cagta ingiriiska iyo isbaanishka labada kulan oo waaweyn laga ciyaari doono aynu ku horeyno kulanka El Clasico oo ah kulamada ugu xamaasada badan leh ama ugu daawashada badan leh kubadda cagta adduunka ayaa galabta la ciyaaraya iyadoo jiilashi kala duwan ay kubadda cagta ciyaartoy kala duwan ay soo mareen kulankani lama saadaalin karo maadaama labada kooxood ay isku dhibcan yihiin koox kasta ay leedahay 22 dhibcood horyaalkana tii maanta badisa ay doonayso inay hogaamiso walow lug labaad ay u harsan tahay haddaba daawade waxaad ka ogtahay El Clasico kulankan oo ah kulanka ugu caalamisan kubadda cagta adduunka balse waqtiyadu ay kala duwan yihiin iyo ciyaartoyda soo maray iyadoo guud ahaan ay soo mareen labadan kooxood ciyaartoyda ugu adkaa kubadda cagta soo maray ugu fiicnaa marka laga hadlayo taariikhda haddaba aynu ku noqono guud ahaan waxa la ciyaaray El Clasico tartamada oo dhan 249 kulan guud ahaan tartamada oo dhan Real Madrid waxay badisay 100 kulan iyadoo ay Barcelona 97 aan idhaahday ay badisay balse marka horyaalka laga hadlayo Barcelona waxay badisay 73 kulan halka Realna ay badisay 76 kulan halka Real Madridna ay badisay 76 kulan kulankan galabta waxa si dheer Benzema iyadoo la qaban doono habeen dambe Ballon-d'Or ama abaalmarinta caalamiga ah ciyaartoyga ugu wanaagsan adduunka la bixin doono Benzema ayaa kamid ah ciyaartoyda u tartami doona Robert Lewandowski ayaa isagu kamid ah ciyaartoyda galabta la filayo kulankoodii ugu horeeyay El Clasico inuu ciyaaro balse kulankan maxaa laga filan karaa guud ahaan ciyaartoyda Barcelona ayaa u socdaalay habeennimadkii xalay toolaha magaalada Real Madrid ee caasimadda oo ah dalka Spain kulankan xamaasadiisa iyo taageernimadiisa iyo xiisiisa ayuu wataa kulankan xiise gooni ayuu leeyahay iyadoo guud ahaan kubadda cagta adduunka la daawan doono marka saacadu ay tahay 5 galabnimo saacada bariga Afrika kulankani maxaa laga filan karaa guud ahaan faalladaadu waa muhiim taageeradaadu waa muhiim maadaama labada kooxood isku dhibcan yihiin horyaalka ay si siman ay u tartamayaan yaa hogaamin doona yaa dhibca ku hogaamin doona gooldhalinta galabta yaa taageeraysa waa kuma laacibka ku matali doona kulankani faalladaada hoos ayaa nagula wadaagi doontaa meel kastoo aad ka daawanayso guud ahaan tartamada iyo faalladaada hoos ayaa nagula wadaagi doontaa kulankan lama saadaalin karo balse faalladaadu waxa ay noqoto waanu kula soo wadaagi doonaa daawada meel kasta naga xidhan tahay iyo meel walbaad ku sugan tahay aad baad u mahadsan tahay taageeradaadu waa muhiim faalladaadu waa muhiim haddii aad ku wacan tahay saadaasha kubadda cagta hoos ayaad nagula wadaagaysaa tartankaasi inta uu ku soo ilaan doono aad baad u mahadsan tahay meel walbaad naga daawanaysa